magaalada Galkacayo waxaa la soo dhigay meedka gabar yar oo 12 jir ah taa oo dad badan maanta saameyntoodu aad looga dareemaya baraha bulshada. Allah u naxariistay Caisha ayaa la sheegay shalay iyadoo aaday suuqa in kadib reerkeedii ay waayeen saakayna meedkeeda la soo dhigay gurigii ay degnayd guri ka dhow waxaana la sheegay in ilaa hadda ciidamada dawladda Soomaaliya ay halkaas ku sugan ee wadaan dadaalo lagu doonayo dadkii falkan ka dambeeyay waxaana taasi dadku wali laamaha ammaanka ay ku dhaliilayaan inaana soo qabanin dadkii falkaas geystay. Allah u naxariistay Caisha waa 12 jir waalidkeeda warbaahinta la hadleen waxay sheegeen inay ka mid ahayd ardayda wax ka barata magaalada Galkacayo waxaana hadda dadka magaalada Galkacayo ku nool maanta aad ugu banaan baxeen iyagoona alla ugu bariya in gabadhan alla u naxariisto inkastoo dhibkan uu ku dhacay haddana Caisha waxaa la sheegay in meedkeedu ay soo dhigeen magaalada Galkacayo. Caisha Ilyas Aadan waa gabar 12 jir ah isla markaana maalinta shalay lagu waayay magaalada Galkacayo taasi oo baadi goob ay ugu jireen waalidkeeda maanta ayaa iyadoo meeyda laga helay afaafka hore ee guriga eheladeeda waxaana jirkeeda ka muuqanayay dhibaatooyin loo geystay taasi oo argagax ku abuurtay waalidkeeda. Taliska qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland ayaa sheegay in wali ay socdaan baaritaano ku aadan dhibaatooyinka loo geystay gabadha iyo cidda ka dambaysa falkaasi. Cabduqaadir Axmed Afrax taliyaha saldhigga qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland ayaa hadalkan u sheegay warbaahinta. Kullay arinta waxaan maqlay shalay baa gabar yar oo 12 jir ah adeeg loo dirsaday. adeegaadii loo disay gabadhii waa la waayay xalay ilaa shalay waa la baafinayay. saaka aroortii baa waxaa la soo dhigay baa la yiri guriga meel aduu 20 talaabo u jirta gurigooda gabadha gurigooda baa meydkeeda iyadoo jawaan ku jirta la soo dhigay oo inta wajiga laga bedelay. waa dhacdo aad u fool xun oo aad u xanuun badan. على كل حال أنو بوليسان باريس بانجلي. ها أنت أنا دعوة واحد كشين. قلين لا قلين ماي. ولا تدري ولا عشي وتشجاسة قبل اللي تدري. وحلا قلي وحلا قلب حي فرسموي كاش متشين. waxaanu ka sugaynaa dhaqaatiirtii CD baanu ku daray dhakhtarka gabadhii la geeyay dhacaan in laga qaado dhacaanka la kaydiyo garow loo diro la baaro. Arrintan ayaa mid aad uga murugoodeen shacabka magaalada Galkacayo waxaana magaalada Galkacayo ka soconaya mudaharaadyo ay dhigayaan dad u badan haween isla markaana muujinaya dareenkooda ku aadan dhibaatooyinka loo geystay gabadha 12 jirka ah. maanta waa isniin waxa weeye dhamaan ardayda iskuulada Galkacayo maalinta bariya waa la fasaxay sababtoo ah waxa dhacday arrin oo gabar ardayad ah inta la dilay ama loo geystay fal kursi ah marka dhamaan maamulayaasha iskuulada iyo macallimiinta iyo ardayda maanta waxay ku dhawaaqeen in maalinta bariya iskuulada ay fasax yihiin sidoo kale arrintaasna ay maaragtay aad ugu xiyeenayaan. walaal macaan gabdhaha Soomaaliyeed dhaxtiyad badan baa lagu hayaa walaal waxaan idin ka codsanayaa inaad gabadha wixii kufsaday waa gabadhii labaad bisha gudaheeda la kufsado rag oo la dilo oo maantana wax walba loo geysto waxaan idin ka codsanayaa walaal dadka ragga Soomaaliyeed nimanka saar loo galay inay naga qabtaan hooyo walba way ogtahay aabbo walba wuu og yahay wiilkiisa saqajaanka wuu og yahay waad ogtiin hooyo walba wiilkaada saqajaanka. faralka la xiriira amaan dirida iyo kufsiga ayaa kuwa caado ka noqday waqooyiga magaalada Galkacayo ee Puntland inkastoo maamulka Puntland uu soo waxba ka qaban arrintaasi. laamaha amaanka ee gobolka Mudug ayaa ka hadlay dil magaalada Galkacayo loogu geystay gabar 12 jir ah taasi oo meedkeeda laga helay xaafad ka tirsan magaalada Galkacayo. warkan waxa inoo soo diray wariyahayga Axmed Jaamac aan cadeeye. xaaladda magaalada Galkacayo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ka casanayd maanta kadib mudaharaadyo ka dhashay gabar da'yar oo lagu magacaabi jiray Caisha Ilyas Aadan oo ahayd 12 sano jir taasi oo la sheegay in gurigooda hortiisa laga afduubay kadibna saaka hiirti waa bari dib loogu soo celiyay afaafka hore ee gurigooda iyadoona isla goobtaasi ku nafbaxday.
dhaawacyo kala duwan ayaa ka muuqday qeybaha kala duwan ee jirkeeda iyadoona saaka meydkeeda la geeyay cisbitalka guud ee gobolka Mudug madaxda caafimaadka iyo kuwa ammaanka ee magaalada Galkacayo ayaa sheegay inay weli wadaan baaritaano lagu hubinayo dhacdada ay sida ay u dhacday iyagoona sheegay in falkaasi ay u qabteen ilaa dhowr qof baaritaanada kadibna ay la wadaagi doonaan warbaahinta waxaan loo keenay saaka gabar da'deeda lagu qiyaasay 12 ilaa 13 baa isbitaalka la keenay marka la keenana meyd bay ahayd jirkeeda inta badan waxa ka muuqda calaamado dhaqaatiirta baaritaan ku sameysay oo aan u diray calaamadaha ka muuqda siiba inta wajiga xabadka caloosha iyo boodiyaha inta hore calaamadaha ka muuqda la oran karo waa dhaawacyo loo geystay jirdil loo geystay waana socdaa baaritaankii oo ilaahay hadda baaritaankii guud waa socdaa insha Allah wixii ka soo baxa oo baaritaanka dhameystiran dib baan ka soo sheegi doonaa hadii ilaahay idmo soo faahfaahsan waxaan inay cadeynaynaa inay gabadhaas u taalo isbitaalka lana keenay iyadoo meyd ah ilaa iyo haddana baaritaanka ku socdo ma cadeyn karo ilaa iyo hadda anaku waxa ku dhacay oo in ma oran karo waxaas ku dhacay sababtu waxay tahay baaritaankii oo socda kama hor dhici karo baaritaankii baa ku socda hawshaas oo kale markay timaadana ma ahan hawl fudud waxay u baahan tahay in la cadeeyo oo wixii si wax u gaareen iyo waxa ku yaala in la cadeeyo u baahan tahay marka hawshaas waa socotaa ka hor dhici mayno insha Allah hadii la haydno dhaqaatiir baa ku jira isbitaalkeena taala hadda meydkeedii intaas baan hadda ina cadeyn karnaa geeridan xanuun kale intaysan dhicin shalay abaara saacadu markii geeska Afrika la yiraahdo maxaan iran karaa 18 iyo barkii meelaha oo marka lagu qiyaaso abadu 10 saac iyo wixii ka dambeeya galabnimo ayaa waxaan noo yimid laba gabdhood waxayna noo sheegeen gabar yar oo la waayay adeeg subaxdii shalay inta loo dirsay la waayay way nagu wargeliyeen waa diiwaan gelinay gabadhii meelihii aanu xiriirada la wadaagi jiray sida saxaafadda iyo saldhigyadii kale aanu u wargelinay waxaan niri gabadhaas bal hal isweydiiyo way arkaan gabadhu qofku waa waalan karaa waa asaga iska baxsan karaa marka dadkaasna waa wargelin saaka salaada subax markaan tukaday anigoo aan wali meel kale u dhaqaaqin baa odayaal yimaadeen cararayaa noo yimid waxay noo sheegeen gabadha meydkeeda guriga lagu soo tuuray shalay la waayay gabadhaas oo la oran jiray magaceeda Caisha Ilyas aadan waxaana la ku sheegay 12 sano jir ilaa 13 jir inay ahayd ina Zainab Abdi Wahab baa la oran jiray Allah u naxariisto sidii baan howlgalkii ku bilownay waxaan aaday goobtii dilku ka dhacay intaanu meydkii dhagaxa aadin waxaanu ku hormaray goobtii meydka la keenay waxaan ugu tagnay meel adoo aan wax lagu dilin laakiin meydka lagu tuuray oo dhigay wax uga dhaceen uurto uga dhacday tilmaan waxaan la siiyay halkaas in afgoombi lagu tuuray waxaa la sheegayaa baabuur in la malaynayo in gaari laga tuuray adoo ilaa iyo saacada waxaanu ku jiray baaritaankii raadad badan oo isdaba jooga waa hayna dad badan oo dhowr aan waan soo xiray oo aan baarayno laakiin aan oran karin hadda waxba noogu cad waxaan u tagnay meydkii iyo isbitaalkii waxaanu aragnay gabadha sida wax loo yeelay waa arag runtii inta dhaqaatiirtu ay ayadu shaqada ku lahayd oo noo cadaysay oo ah kufsi fool xun oo isku furan gaaray dhaqaatiirta noo sheegtay anagu ma ana sawirin mana ana arag
laakiin waxaanu aragnay oo markhaati ka furi karaa korkeeda oo jirdil xun loo sameeyay. dadweyne badan oo ka caraysnaa falkani loo geystay gabadhaasi yar kuwaasi oo u badnaa haween ayaa ka hadlay dareenkooda iyo sida ay ugu xun yihiin dhacdadani. walaal macaan gabdhaha Soomaaliyeed dhaxtiyad badan baa lagu hayaa. walaal waxaan idin ka codsanayaa inaad gabadha wixii kufsaday waa gabadhii labaad bisha gudaheeda la kufsado rag oo la dilo oo maantana wax walba loo geysto. waxaan idin ka codsanayaa walaal dadka ragga Soomaaliyeed nimanka saan loo galay inay naga qabtaan. hooyo walba way ogtahay, aabbo walba wuu og yahay, wiilkiisa saqajaanka wuu og yahay. waad ogtiin hooyo walba wiilkaada saqajaanka. waxaan idin ka codsanaynaa waa aabba dhalay, annaga waa aabaheen, waa walaalkeen. saa in loo gala maaha. 30 sano ayaa tacadiyadana lagu hayaa. walaal waxaan idin ka codsanaynaa tacadiyada in la ka daayo. waxaan codsanaynaa Puntland madaxweyne Danay, waxaan ka codsanaynaa gabdhaha kufsiga laga daayo, caruurta kufsiga laga daayo. nimanku anaga xishoodaan, ilaahay ka cabsadaan, Alle abuurta ka cabsadaan. ilmo yar oo 12 jir bay soo dileen, bay kufsadeen, bay meel walba jeexeen, ilaahay ka cabsadaan. hooyooyinkood baan nahay, walaalahood baan nahay, xaasaskoodii baan nahay, annaga dhalnay, habar yar baan u nahay, eedaan u nahay. ilaahay ni soo qabto, ilaahay ni soo qabto, ilaahay ni soo qabto. dulmiga ilaahay soo qabto, ilaahay soo qabto. raxmatullaahi tacaala wa barakaatu. hadaan nahay gabdhaha dumarka gobolka Mudug waxa weeye maanta foolxumada meesha ka dhacday iyo in xumada maanta meesha ka dhacday. waxa la kufsaday waa gabar anagoo kala waa hooyo dhashay oo inala dhalatay. maanta dhibaatada meesha ka taagan rag baa geystay, tanoo kalena hadda ka hor kama dhicin Galkacayo, laakiin waa dhacday. waxaan rabnaa nimankii dhibka geystay dawladdu inay noo soo qabato oo annaga dumarkeenna aan toogano oo raggu noo toogan baan diyaar u nahay. haddii Soomaalinimo jirto, haddii dumarka loo hiilinayo, hooyooyin baa nahay. maalintii berita ah ayaa dhammaan la fasaxay goobaha waxbarashada sida uu sheegay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Mudug. shirkan jaraa'id ayaa maanta gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe waxa ay ku qabatay xafiiskeeda magaalada Muqdisho, waxa ay kaga warantay dhacdooyin xanuun badan oo ka kala dhacay magaalada Galkacayo iyo deegaanka La Foole ee gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ayaa dowladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta dowladda Puntland ugu baaqday in si degdeg ah gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyay dhacdadii xanuunka badneed ee lagu dilay Caisha Ilyas Aadan oo iyadoo meeda laga helay afaafka gurigooda oo ku yaala magaalada Galkacyo. gabar yar oo 12 jir ah oo laga xaday eeriyadii guriga ay ka deganeedeen degmada Galkacyo maaragtay Mudug in shalay ilaa xalay la raadinayay meel ay jaaniga ciribta la waayay. dabadeedna meydkeedii saaka la soo dhigay gurigii laga xaday reerkooda ay deganaayeen. weli maaragtay dhibaatadu waa ku badan tahay Soomaalida, laakiin ficilada noocaas oo kala ah oo bini'aadanimada ka baxsan oo ilmaha saqiirka inta la xado la farax xumeeyo la dilo maxaan ku raahdaa isagoo meyd gurigii haddana lagu soo celiyo, runtii waxay aad iyo aad u dhibaataysay shacbiga Soomaaliyeed dareenkooda. waxay dhibaataysay dareenka hooyada Soomaaliyeed, waxay dhibaataysay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel ay joogaan. sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa tacsi u dirtay ehelada 8 haween oo maanta lagu dilay deegaanka La Foole ee gobolka Shabeellaha Hoose. geerida naxdinta leh iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ayagoo iskaa wax u qabso dalkooda ugu shaqeynaya lagu dilay La Foole gobolka Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose, degmada Afgooy agagaarkeeda. runtii aadan u argagaxsanahay. geeri lama filaan ah, geeri gacan cadow ay ku baxeen, cadow aan u naxaynin ummadda Soomaaliyeed, cadow aan ka xishoonaynin ilaahayga abuuray ee adduunka keenay, cadow duulaan ku diinta islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed muslimka 100% oo sheeganaya oo maaragtay ku faanaya inay dhiigga walaalkood daadiyaan. aad iyo aad ayaan arrintaa uga tiiraayaysannahay. ugu dambeyntii gudoomiyaha waxay sheegtay in dib loo dhigay doorashada hoggaanka ururka haweenka qaranka oo la filayay inay qabsoonto horaanta bisha nagu soo aadan. bishii November sanadkii tagay ayaan waxaan ku dhawaaqnay inaan sameynayno shirweynihii ururka haweenka oo doorashadii la geli doono
doorashadaas oo ah gudoomiyaha guddiga fulinta ku-xigeenadiisa iyo golihii dhexe oo maaragtay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed arrimo la soo dirsay ururka dartood ayaa waxaa laga maarmaan noqotay kadib markii wada tashiyo la sameeyay gaar ahaan gobolada qaarkood oo ay ka bilowdeen doorashooyinka maxaan ku raahdaa gudiyada deegaanada iyo doorashooyinka iyaga laftigooda ay isku diyaarinayeen oo heer dowlad goboleed iyo heer gobol iyo heer degmada dhammaantood ay ka tirsan yihiin ayaa waxaa wada tashigii ka soo baxay inaysan hadda suuragal ahayn in la sameeyo shirweynihii xilliga aan ku dhawaaqnay oo ahayd 1 Maars sida awgeed markii doorashooyinku ay dhammaadaan insha Allah tacaala dib ayaa laga soo sheegi doonaa xilliga aan ka dhigan doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo doorashada soo socota ee ururka haweenka qaranka حيو محمد لقى وتوات حالك غير مذوبين وميل الله خصوصا عين حجو اخيروه وميل حسارة فرحوني يوحومك وبرمان وميل حكام لا شرعي قال حاضر اياه وميل الله خصوصا عين وميل حكام لا شرعي قال حاضر اياه وميل سيد حرمه وين لحرقيتيني وميل حبيب وذا دشي يوحيد البايرين وميل حقال كاتين حسيتكو ياي وميل حرير كي تلمو حريق اللوغويني وميل الكي لغا تيغان لغا حيشوني وميل حقيقة دي دونتان حقا لا شيغيني وميل حرام تتاهي سيدا حراشي وميل حد قودو بجوغو يوحي لفور بيني وميل حرغون دون ويايكي حرشاشي وميل حفاليو دنديو حنيك بوحداي وميلو حليسان لعاق حاكمكي وميل حرفو بلغا ديكتا حيلا ديو عيبي وميل نيكي حوق يرا حدا كجوغاي وميل حراشيو دعيو حوقتي لاياي وميل حياتيو دقنيمو كحد فناديني وميل متكال حروتي ضين حبشك اللي تاي انتاير حفاوري يقصر وقدر لها